tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay haddii gesi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay هذا الوضع كتاري هذا بقى كتار ما تسلم أو مكسي وعطاهم لا بعدين هاي ذاتك شعب بوتاه وبوتوجة وعرقتاه يجد مجال ونقل مجال المجال يبقى ومراها واحد صهر مريض تدخل مجال وجراح بعد ما وصل والجيران كنت يطلقوا وتدخل صاقعي وكر صاقعه أنا أقول بجوكتين يقدر كده بقالولي خليني وين بانو هينا وحامو هينا ليش أبغى هيكسر فورا وهيكسر كمان وقطان أما يا واحد ليش على غيره واحد وده إيه سمحنا نقولين ترى يبدأ على كل سوق هذا واحد نقام أما فرسمه وقرأنا لما أي سنة هاي بطل لو تقولوا سنة موضوع على واحد هاي مركز هذا يدرس مجال الشراء هذا القربة الشراء إلى الدجاج كودي يدرس كودي ومضودي واحد يبغى بصور نقطة أو واحد لقب صلاة أو واحد لقب طبعا يا كرسو قاعدين يشتغل باليوم بعدين أنت عوامل لي أما كبتشوف أما مجالين كتبت كنيجي دليل أيهم بدون كل ما تنتهي بدوني أجاسين هذه سعودك أو سعود إنسان دقيقة يضلك تقوم هالسنتي صدى شو مدلدو أكنت مصيبتي عذي سمعتي وكرتدا كرامة إيريغا سوغان كرامة إيريغا سوغان صدى شو مدلدو أكنت مصيبتي عذي سمعتي وكرتدا كرامة إيريغا سوغان كرامة إيريغا سوغان شدكو ساعدون horseed kawsan xidho sibrarka u buuxsadee shacbiga samowgu adeega markale ha lagu suntee bulshada kugu saacido horseed kawsan xidho sibrarka u buuxsadee shacbiga samowgu adeega markale ha lagu suntee هذا سبيل هوين انتي كسركعين وكلك مصعبت منه هذيك سلاميان هذيك سلاميان هذا سبيل هوين انتي كسركعين وكلك مصعبت منه هذيك سلاميان هذيك سلاميان
sidaad u jeedaan wuxuu ka kooban yahay saldhigu 8 qol oo ay laba xabsiye yihiin kuraastiisii wixiisii oo dhameystiran yihiin hoolashiisii waa kuwaana ku guda jirnaa saldhiga degmada Tawfiiq qolkan aad u jeedaan waa xafiiskii taliyaha iyo qalabkiisii iyo wixiisii u dhameystiran yihiin waanu hadda booqanay meeshani waa saldhiga degmada Tawfiiq oo sida aad u jeedaan halkan waa hoolkii shirarka oo la qalabeeyay kuraastii miisaskii korontadii oo wax walba u dhameystiran yihiin sida aad u jeedaan waxa hadda saaka booqasho ku yimid gudoomiyihii degmada Tawfiiq ummadda wada siin karo ismaan dhaafiya sawiga dibkiisa ka tigala xumaanba ka suuriyo dareenkii ka saara jiray ummadda wada siin karo ismaan dhaafiya sawiga dibkiisa ka tigala suuriyo dareenkii ka saara jiray bismillaahi rahmaani rahiim waxaan intaan kula wareegnay daawo uu soo dhiibay wasiir dowladda Puntland caafimaadka Seyid Cumar Aadan Guuleed loogu talagalay deegaanada Xeraale iyo Bulshada marka waan gaarsiin doonaa insha Allah halkan ila joogo xidhoon Cabdi Tafadal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما علمنا وسيد دولها بطلان سيد عمر آدم جوليد iyo dawladdiisa Puntland sida uu uga damqaday dhibta meeshaas ka dhacday dawadii uu soo dhiibay ayaan hadda kala wareegnay gaarigii uu soo dhiibay haddana waxaan gaarsiin doonaa deegaanadii loogu talagalay bulsho iyo Xeraale dadkaas meeshaas dhibta ku kala gaartay ayaa loogu talagalay oo ku mahadsan yihiin dawladda Puntland iyo wasiir dowladda Seyid Cumar Aadan Guuleed wabillahi tawfiiq haddana waxaan ku abdi jirnaa sidaan ku amba bixi lahayn gurigii dawladda degmada Tawfiiq gurigaasoo howlaha dawladda oo dhan lagu qaban doono howlaha dawladda degmada oo dhan lagu qaban doono hadii ilaahay idmo waxaa nala jooga isimadii waxaa nala jooga gudoomiyihii degmada taliyihii ciidanka booliiskii saraakiishii booliiska waaxdii caafimaadka ciidamadii waxaan leenahay dadkii dalkan lahaa waa inay dhistaan dal iyo dibad jaaliyad ganacsato dal ninkii dhistaale haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo nin walba maanta waa u jeedaa dadaalka aan wadno cidi uma qodna ceelna uma qodna waxaa la rabaa dhismihii degmada Tawfiiq waxaa la rabaa dhismihii degmada Tawfiiq dal iyo dibad ganacsato aqoon-yahan maamulada hadda waxay maamulka dawladuhu waxay rabaan waxaasaan haystaa wax igu dar waxaa rabaa inaan anagu dadku u istaago deegaanku inuu waxaan dhisto wixii ka dhimanaadana loogu daro assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu degmada Tawfiiq waxay leedahay xeeb dheer oo 100 kilomitir iyo wax la jira ah waxaa ku yaalla xeebtaas waxaa teedsan tuulooyinka Ceeldhanaane Galhagoog Dhinowda intaasoo tuulo ah waxay hoos yimaadaan degmada Tawfiiq waana xeeb khayraad leh kalluun leh argoosta leh libaax leh hadeerba dad baa ka shaqaysta sida aad arkaysaan waxaan codsanaynaa ganacsatada iyo jaaliyadaha in la maalgeliyo in xeebteena la maalgeliyo waxqabadkeedana waa laga hadlayo haddii ay gobolka ay tahay iyo hadday jaaliyadaha bannaanka tahayba waa laga hadlay iyagana waxaanu rajaynaynaa kuwa jaaliyadaha oo degmada u dhashayna inay si toos ah ay u dhisaan degmada